السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ورسن شيخ محمد الجنال كداونيسا نواسيروخ شيخ جنال ما شاء الله تبارك الله والرما إن أصحابي سودة دوادا أصحاب تدب إيجا صوبيرتي وحيد الله هاي جزاك الله خير وأحسن إليك وغفر الله ذنبك. أصحابتي هراء إلي جوكتين وحليها خير يا بركة يا نور عندمانين بإذن الله الرحمن. waxaan isleeyahay maanta dhan baa islaha barnaamijka ka hadashid runtii jaanis baan u waayay ma sha Allah tabarakallah hadda waxaan sirin jaanis waa haysaay kaga hada waxaan rabaa runtii inaan ka hadlo arrimaha Soomaaliya oo baryahanba dadka ay ku hayso dhibaatooyin murug والبهار كربة عند مانين صوتا سأقول وحي تهي كربة عند مانين وحي كوهيسا دادك بنانك كماقن دادك الدبدها كماقن وحي كوهيسا كربة قونئة كربة قارة هي كوهيسا سببتي وحيسانا وحي تهي وحي ربان دالكودي او نبضة oo horumarka maanta ay joogaan uu ka socdo sababtay tahay dalkaaga waxa la jeceshahay wax walba oo qurux badan wax walba oo wanaagsan wax walba oo fiican waxaan saa u leeyahay wadan waxaan joognaa horumaray wadan waxaan joognaa ay dadku ka shaqeystaan wax ka qabsadaan nolol ka soo saartaan ilmahooda ay horumareen dadkooda ay horumareen maxaan ku iraahdaaye miciin badan ay ka helayaan bulshada laakiin dhula annaga leenahay ma aha wadana annaga leenahay ma aha laba kalmadood ama saddex kalmadood ama afar kalmadood intaan ka oranaya insha Allah biidnillaahi raxmaan dawladda Soomaaliya horta markuu dhamaaday xilkii uu hayay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa markiiba isla kacay sawaxan iyo dhawaaq annaga oo ogsoon xasan sheekh inta loogu daray sheekh shariif inta loogu daray annaga oo ogsoon maxamed cabdullaahi farmaajo xilka waqtiga markuu ka dhamaadayna sawaxan waxaa kacay xilkii waa ka dhamaaday 1991 baa lagu noqonayaa 1991 baa lagu noqonayaa sababta keentay 91 baa lagu noqonayaana waa maxamed cabdullaahi farmaajo ka bax fila Soomaaliya okay fila Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shalay wuxuu ku soo galay doorasho wuxuu ku imaaday doorasho wuxuu ku soo galay idan baarlamaanka uu siiyay oo cod buuxa ayuu ku soo galay marka haddii ay noqoto 1991 baa lagu noqonayaa oo 91kii dhibkiisii aan la xasuusanin ee loo haysta inay dheefta bal hadda eeg 91 haddaan loo xasuusanin in dhib la maray ee loo haysta in dheef la maray dalka rajada laga sugayo maxay tahay bulshada Soomaaliyeed bal qabiil xagga iga dhig okay sidaan arkayno maxamed cabdullaahi farmaajo ku darsashana waa loo diiday wax walbana waa loo diiday awood walbana waa laga hor istaagay awoodii isaga uu lahaa oo uu ku hogaamin lahaa doorashadana waa laga hor istaagay ninkii uu doorashada u idmayna wuxuu gadaasha ka maray mucaaradka adoo ra'iisul wasaare ah adoo muxaafid arkaayo adoo arkaayo xilka lagu saaray inaad meel gaarsiin karto ina mucaarad raacdidba ma aha okay waxa ila yaab badnayd
oon maanta 10 jeer ugu yaraan aan ku noqdoon fiiriyey 30 jir 30 milyan haysto oo xil loo magacaabay oo ma inuu dadka gubaad ugu magacaawdo maxaad ugu magacaawday mise wiilkii Fahad lagu bedelay iyo ninkan baad rabtaa inaad iska horkeentido halkaas oo qalalaasa iyo buuq ka dhasho tan kale waxaan arkayay ikraan tahliil adeerkeed oo hadlayo oo leh gabadheena sharci gaal iyo mid muslin annaga ku raadsanayna dhiigeeda islaamahan weerka cad xirtay ban gurigoodiiba warka haynin oo meesha laga soo doortay aan warka haynin oo baarlamaanka ciday ugu jirtay aysan warka haynin ee dhawaaqa muqdisho la taagan muqdisho waa tan ay ka dhacayso 1991 baa dib loogu noqonayaa halna waxaan leeyahay farmaajo 1991 siyaad barre ayaa raggeeni dhameeyey intii la bixinayay ayaa la dhameeyey waxaa dib u xusuusataa armayska raggii ku go'doomay ee eber ku noqday inta la bixinayay maxamed siyaad barre 91 markii la yiraahdo xusuusta dadka waxaa ku soo dhacayso waliba shacabka iyo beesha adigu aad ka soo jeedo iyo beelweynta daarood Ismaaciilba waxa qalbigooda ku soo dhacayso siyaad barre markii la soo bixinayay sida loogu hoobtay ama loogu dhamaaday okay maanta markaa filla Soomaaliya isku dhajisid adiga hal maxaa dadkan u ah markay xabaddu halkaa ka qaraxdo ma waxaad rabtaa in halkaas nin walbaba uu difaac intuu ka soo galo ka soo ordo walow maanta aan arkayo oday daaroodo meel ku shiraya aan arkaynin oday daaroodo hadlayana aan arkaynin duf Allah ku bixiye meelay ka bixin ma aqaane kuwana waa iska magac u yaal meelahay koofiyada dheer yihiin ka ashaalkana garabku saaran yahay gabadhan daaroodkay soo caysaynahay dhihina odayaasha daarood bay u gaftanahay dhihina runtan sheegayaa wallaahina waxba ka gaban aniga runtan idin sheegayaa kuwii loo baxsan lahaa halka iyo Puntland jirayna koofiyadahooda iyo shaalkoodaba kama badiyaan kuwa Jubbaland joogana koobka shaah oo qaraarowga ah baa la faco oo la fil ah iskuma soo jiidayaan dadkooda kala jeedo dadkooda naceebka dhex yaallo dadkooda sunta dhex taalo dadkooda aan is arki karin dadkooda iska soo horjeedo dadkooda naceebka isu muujinayo gabadhu way qabyaalad badan tahay haddii la yidhaahdo hadda nin walba qabiil buu ka soo jeeda kana yimid horna waa la iigu yiri dee qabyaalada guriga hooyadeed bay kala timid waxba uma arka waxaas waxaan u haystaa inaan hadli karo codkaygana meel gaarsiin karo in runta la isu sheegana aad bay u fiican tahay farmaajo maanta kuuma taalo xamar dan kuuma taalo dan xamar maanta kuuma taalo doorashana maanta xamar kuuma taalo in dib inta lagu doorto aad soo noqotid oo dalkan aad dib u xukuntidna ha sugin sababtay tahay waxaan arkaa in cadowgaagu batay waxaan arkaa in naceebku ay ku hayaan dadku u badan yahay mid aamusan iyo mid hadlayaba mid aamusan iyo mid hadlayaba waxaa kaloo aan la yaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa weeye shalay anigu horta waxaan u haystay nin wadaad ah
oo runtii sunnihii ka muuqdo oo buraanburkaan tiriyey baabana waxaan ku soo daray inuu sunnihii dushiisa yaallo laakiin waxaan leeyahay maxaa lagu cabsiiyey in adeerow gacaliyo biyahan aad qurqurisay xaggeed ka keenta ma tahliil baa laguu tufay ma qolaa ku rogtoo ku dabagedisay ma qur'aan kaa tira badan baa lagugu sii daayey bow macaan xaggee laguu tegay meesha laguu tegay waa halkee aanu faataxada kaaga soo marnay ilaa nin deggan oo fiican oo shaqo inta loo diray ka soomaali weyn oo dhan u durbaantumanaysaad ahayde oon laabta iyo beerka kugu haysanoon lahayn ra-iisul wasaare deggan oo wadaad ah baa yimiye ma qamiiskaa ina siray ma koofiyadan barawaaniga aha nasirtay qolo nasirtay anagu waa garan weyne ilaa hadda indha sarcaadkiina ku dhacay eenu roobla ku dabagallay ilaa hadda waan garan laha ilaa hadda waan garan laha laakiin ibni aadanka waa qaldamaa waana ka soo noqdaa marka laakiin la yidhaahdo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baa is haysto oo khilaafkii bato oo oday idinkala dhex galo iyo dhaqan idinkala dhex galo iyo cid idinkala dhex gasho aysi jirine baraha bulshada warka la iskaga laliyo idinkuna baraha bulshada aad fiirsataan runta ha la isu sheego madaxda soomaaliyeeday baraha bulshadaad ka shidaal qaadataan baraha bulshadaad soo gashaan baraha bulshada dadka jawaabaha ay bixinayaan hadalkan annaga ku hadlaynad xaruntiinana kaga shaqaysaan ood kaga hadashaan runta ha la isu sheego islaamaha meelaha ka qaylinaya wiilasha qaylinaya iyo gabdhaha qaylinaya islaamaha anoo kaloo qaylinayo hadalkoodaad qaadataan ood fiirsataan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaysan baraha bulshadana dowladna looga talinaynin kala dambeyn iyo cadaaladna la helaynin waxa laga dhaxli doonana waxay noqon doontaa wax soomaaliya ay ka sheekeyn doonta in badan laakiin maxamed cabdulaahi farmaajow dalka yuu ku eersanin muqdisho yaysan ku eersanin waxaad u soo qabatay iyo waxaad soo samaysay iyo xooggaagii iyo caqligaagii iyo maskaxdaadii aad ummadda soomaaliyeed ku soo xukuntay ilaahay kaa habaabin maayo ilaahay meel cidlo ku dhigi maayo ilaahay garabkaagu saacad walba joogaa laakiin maxaan ku leeyahay waxaad shalay soo samaysay maanta yaan dib inta loo xumeeyo adiga eedeedii lagu saarin adiga eedeediyaan lagu saarin oon lagu dhihin farmaaja ka dambeeyey inay soomaaliya burburto farmaaja ka dambeeyey inay muqdisho burburto waxaan kaloo arkayay dad dhahaya muqdisho ha laga raro caasimadda meel la geynayo ma laha nin colaad raba ma jirto nin dhibaato raba ma jirto muqdishona waa meel ay ka degi la'dahay soomaali nin walbana gurigiisa asagaa dhistoo hagaajisto guri nabad ah iyo dhul nabad ah haddaad aragtid reerkii lahaabaa nabadaystay reerkii lahaabaa gogosha dhigtay reerkii lahaabaa u diiday inay ka dhacdo xabad waxaan caddaynayaa magaalada kismaayo berigii 1999kii inay ahayd baan jeclahay ee uu soo galay barre hiiraale ee morgan laga saaray marka dambana morgan intuu soo galay 24 saacadood keliya uu haystay ee khudbada uu ka jeediyo uu yiri reer kismaayow dagaal kismaayo gudaheeda ah ka ilaaliya anigu intaasaan idinkugu dardaarmayaa iyadoo markaas iyadana morgan la mucaaraday ee laga soo horjeensaday loo arkin wuxuu qabtay iyo wuxuu sameeyey midnaba waxba loo arkine loo arkay nin dagaal ooga ah oo la saaray laakiin nin caqli iyo maskax badan buu ahaa wuxuu yiri reer kismaayow hadda boqoladii idiin imaato xilka ha idiin hayso kii hore usii joogayna ha ka baxo albaabka maxay noqotay etoobiyaan markuu soo galay kismaayo xabad kama dhicin la iskumana dagaalin tartiib ciidankii joogaa ka baxay etoobiyaana soo gala
sababtay tahay dardaaran ay qaateen. nabadda yaa keensado dadka dhulka iska leh ilaahay ku beeray, dadka u nasab sheegan karo ee ku abtirsan kara ciidan ayay nabadda ka go'daa oy ka imaataa. marka maxamed cabdulaahi farmaajo 91 aan ku soo dhammaanay. siyaad baraa la bixinay inta la yiri allaha u naxariiste maxaan ku idhaahdaaye derbiyada looga daatay inta wiile ku go'day meeshaas waa la ogyahay. maantana adiga naftaada intaad badbaadsata ka soo bax. hadda ka hor baa waxaan sheekada ku keenay waxaan tagnay shirkii on elef baan tagay aniga iyo islaan caruurtayda ayeeyo u ah oo aabbahood eedo u ah. gabar xaggii Itoobiya ka timi baa noo sharaxday dhulkii, waa noo sharaxday xaggay ka rogtay, barwaaqada dhulkay sheegtay, nimcada dhulkay sheegtay, shidaalka ku jiray sheegtay, adduunyay sheegtay, wax walba markay sheegtay oo hadalkii ay gabadhii dhammaysay. eedaday waa soo booday waxay tiri eeday ma ku sheegaa, waxay tiri dhulkani waa dhul nimcaysan, waa dhul rasuulku u duceeyey, waa dhul kaalay araga, waa dhul kana. sheekadii markay dhammaysatay oo nimcadii iyo dhulkii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu u duceeyey iyo wixii oo dhan iyo taabiciintii inay mareen iyo asxaabtii qaarkeed inay martay iyo oo dhulkaasi dhul barakaysan yahay markay dhammaystirtay gabadha dayada waxay islahayd maasha allahu tabaaraka allah hadalkii ugu dambeeyaad sheegtay biyo kama dhibcaan ah. waxay tiri eeday ma kuu sheegaa dhulkan aad leedahay rasuulka u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxba kama qaadayna hanagu dhammaynina. dhulkan wax aan ka qaadayn ma jirto eeday wiilasha nooga dhammaynina. waxba jabhad baa xagga u baxday iyo ana laf baa cirka dumisay iyo adduunyaha nagu haynay tiri. maalin walbaba geeri baa dadka u taalo, maalin walbaba tacsibaan taagana. marka wax ma idiin sheegaa hadda waxa weeye maxamed cabdulaahi farmaajo adigoo lagu jiijiidanayana ma arki karno, adigoo lagu silcinayana ma arki karnee. ina adeerow gacaliye meeshaan adiga iyo islaantaada khayr allaha siiya maalinba meel intay ka degato iskuul baan xagga ka furay iyo ina adeera gacal samaxad kismaayo imaan weyday. haddaan soo xasuustay be kismaayo bal maxaad oga dhisi weyday guri, aad oga dhisi weyday isbitaal, odgada iyo halkaa u tegi weyday istaallo oga dhisi weyday, baraawa ka dhistay, guriceel ka dhistay, meel kale ka dhistay, muqdisho dhexdeeda meelo badan dhistay. yaa bal intiinan dalka ka bixin ood naftiina soo badbaadsanin maxaad xaggaas iyo dadkana ugu weecan weydeen. yaa waa idinkii dhinacaana faraha ka qaaday adduunyo kalena dhisahayey. hadalkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa raalli iska ahaado intaasna waa iga kaftane. meel walboo laga dhiso guri ama wax laga dhiso ama horumar laga dhiso ama waxbarasho iyo caafimaad laga dhiso meeshaadi kala wey waana dhulkeeni Soomaaliyeed. intaas waa iga kaftan yaa loo sii qaadanin haddee dhankii xumaa yaan loo rarin raalli ahaado. waxaan idin leeyahay oo idinkaga tegayaa khayr iyo barakiya nuur aan dhammaanaynin. 30 jirka 30 milyan heestana yaa yuu 30 teknika intuu soo gato dadka ku baabi'inin. warkaba intaasaan ku gabagabeeyay anigu. khayr iyo barakiya nuur asxaabtayda sharafta leh waxaa idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheerka leega waa xaggeena insha allah biidni illaahi raxmaan. aniguna wax sheega aad baa idin salaamaya. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.